waxa waraysi kooban ka qadi doona fanaanada caanka ee King Jamac oo muddo hadda ku sugnayd Soomaaliland wana markii ugu horeysay ee barnaamijyo dhinaca fanka ay ku qabato magaalada Hargeysa waxaana guud ahaanba hadda soo gabagabaysay safarkii ay ku joogtay Soomaaliland bal hadda barnaamijyada Soomaaliland ku qabatay gaar ahaan Hargeysa iyo guud ahaan sidaad u aragtaa. Thank you so much Petri aad baa mahadsantahay walaalo waxaan arkaa si qurux badan waan ku faraxsanahay inaan joogo dalkaygii hooyo aan ka maqnaa muddo dheer it was amazing you know wax kale aan dhaho ma garanaye oo markii ugu horeysay aan ku soo noqdo dalkaygii aan ka qabtay show qurux badan markaa was amazing waan ku faraxsanahay dadku wallahi been ku sheegmay dadku waxay soo dhaweeyeen aad u qurux badan ay soo dhaweeyeen dhammaan shacabka Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa anoon kala reebin dawladda shacabka taageerayaasha bahda fanka aad iyo aad baan idinku mahad celinaya dhamaantiin King Jamac waa ugu dambeyntii waraysiga aad siinaysaa aad iyo aad ugu mahadsan tahay waad ogtay dhalinyaro badan oo baraha bulshada isticmaala si waxay uga hadlayeen dhinaca labiskaaga bal haddaad arintaas oo dibadaha markaad ku qabato heesaha iyo gudaha oo halkaasi kala duwaneyd bal arinta maxaad ka leedahay arrinka waxaan ku leeyahay dhalinyarada horta aad baan u salaamayaa meel kasta joogan arrinka waxaan ka leeyahay dee fankeena waa inaan qurxisano horta kow meel kastana waxay leedahay dress code si loo labisto ma baantay qof kasta oo dalkeena imaanayana waa inuu u labisto dastuurka uu maro oo u labisto sida dadku bulshada u labisan tahay marka dhalinyarada waxaan leeyahay aad baan idin jecelahay haddaba King Jamac fanaaniinta sida weyn ugu soo dhaweeyay Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa waxa kamid ah fanaanada caanka ee Nimco Degan oo door weyn ku lahayd soo dhaweynta fanaanada Nimco Degan waad ogtahay intii barnaamijyada aad qabanayseen culimo badan ayaa hadlayay oo arintaasi si weyn uga qeyrinayay ama u diidana arinta maxaad ka leedahay Badriyo waad mahadsan tahay horta culimadu waa culimadeeni magaca gudida xumaan reebista iyo samafalida horta shaqo badan baa u taala haddii aanu fanaaniinahay annagu waxaan hoos nimaadnaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta taasa haddii aan fanaanku wax u samaynayo haddii uu waxaa la yiraahdaa wax wanaagsan samaynayo uma haysta fanaaninu wax u samaynayaba ay u taala shaqadeeda laakiin wada shaqayn inay naga dhaxayso waan jecelahay culimadeena ama gudida xumaan reebida iyo samafalida wad aragtayo Badriyo haddaad wadooyinkeena waxa waran caruur yaryar oo mustaqbalkii dalka ah oo xabag wada cabaya inta u danqatay aan arkaa waa fanaan dadka baahan wad aragtay haddaan xuso hal fanaan Faad Cumar Yaro waa taqaana wuxuu ka shaqeeyaa inta badan samafal miyaad aragtay weli gudida samafalka oo reer baahan soo saaray oo reerkaasa baahan waxa loo guro oo cid hor keenay meynaan arag anigu shaqadooda way dayacantay baan leeyahay kiin ugu dambeynayso fanaaniinta waxa la yiri magaalaha hadii lagu ilaayay isha la iska ridaa kiin saasay u labisnidii la maalinta timid waa inay yaro dhalinyaro ah wadankay joogtaa waa wadan ay maxaa la yiraahdaa age-keeda uu la mid ahayd oo ka duwaneyn marka meel kasto ay joogto dee way maxaa la yiraahdaa labiskiisa ayay yeelanaysaa halkaas ay timid waxay fanaanadii ugu horeysay ugu anshaxa badneed in anigu arko been kama sheegayo cid walbana way ogtay halkaas ay degan ayadeed baa la deganay waalidkay hooyadeed baa la deganay fanaanad intay dalka ku soo noqoto anshaxa ay leedahay leh anigu ma arag to be honest intii la aragtana way aragtay ixtiraamkeeda respectkeeda appreciatekeeda qofka wax yar saa ugu qabta siday mahadnaqeedu ahaa marka kulli culimadu qalad baa ka dhacay inanta markay halkan timid miyadoo qaawan la arag mise inantaas sida muslimka u labisan inanta waa lagu qaldamay sidaas bay u labisneed ilaa maalintii la arkayay yaa fanaaniinta kalena quraan ma akhriyeen way heesayeen heesiyeen iyaduna heesayso marka culimadayada waanu jecelnahay dalku waa dal islaama dalku waa dal aanu mamnuuc ka ahayn fanku madaxweynaha iyaga aanu heesnaa heeso mamnuuc ma wanaga Muuse habeen dhareer u taagan u heeseen
way ogyihiin inaanu sharciga maxaa la dastuurka Soomaaliland fanka wuxuu siiyay ahmiyad weyn ahmiyadda uu siiyay waa inay dib culimadu u eegtaa